Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Dowladda Federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa waxa uu ugu hambaliyeeyay madaxda Dowladda Federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedada dalkaasi ka jira sida habsamida leh ee ay u maamulayaan shirka uga socda Garowe, waxaana uu ugu baaqay shacabka Soomaaliya inay taageero u muujiyaan shirarka kan Garowe ka socda noociisa oo kale ah isla markaasina lagaga tashanayo ayaha shacabka dalkaasi Soomaaliya. munaasabadan uga faa'iideysto inaan u hambaliyeeyo madaxda Soomaaliyeed madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxda maamul goboleedada ee ku shirsan Garowe oo danta ummadda Soomaaliyeed iyo arrimaha masiiriga ah ee dalkan horumarka iyo horukaca u horseedaya kaga tashanaya guulna ay ka soo bixi doonto, amniga kaga hadlaya, siyaasadda loo dhan yahay kaga hadlaya, dhaqaalaha kaga hadlaya, arrimaha bulshada iyo dib u soo kabashada iyo sidii dalkan Soomaaliyeed uu hore ugu mari lahaa, hore cagihiisana si buuxda isugu taagi lahaa. shirkaasi waa shir guul ah, si fiican oo socda iyo dilo iyo rajo weynba sidii kuwii hore baa ugu guuleysanay Ilaahay idinkiisa ay ka soo baxayso kana soo bixi doonto. waxaan doonayaa in ummadda Soomaaliyeed la wadaago meeshii laba qof oo Soomaaliyeed ama laba mas'uul oo Soomaaliyeed oo wanaag Soomaaliyeed ka shaqeynayaba isugu yimaadaan inaynu la shaqeyno, u ducayno bisha barakeysan ee Ramadaan, isna barbar taagno guulna inoogu dhamaadaan arrimaheena qaran ahaan iyo ummad ahaan.